gudoomiyaha gobolka Sool Cabdi Khayr Dirir ayaa maanta kulan la qaatay qaar ka mid ah hay'adaha ka howlgala gobolka Sool. Gudoomiyaha ayaa kulankan la qaatay saraakiil ka socotay hay'adaha MBA ee ka howlgasha gobolka Sool iyo sidoo kale hay'adda ACR ka shaqeysa deegaanada gobolka Sool. ujeedada kulankan maanta uu gudoomiyuhu la yeeshay labadan hay'adood ayaa ahaa celal biyoodyo looga hirgelin lahaa meelaha oomanaha ah ee gobolka sidoo kale sidii looga qayb qaadan lahaa gurmadka dadka ay abaaruhu saameeyeen waxaana kulankaasi markuu soo dhamaaday saxaafadda la hadlay gudoomiyaha gobolka Sool Cabdi Khayr Dirir saad la socotaanba bisha maanta 2012 waxaan soo booqday wafdi balaaran oo xafiiska MBA Laascaanood iyo hogaaminayaan wafdigaas oo runtii ahaa inay u taabagalaan ama ogaadaan xaqiiqda rasmiga ee abaarta iyagoo hore uga hawlgeli jiray horena ogaa suuraysiga intaas oo ahaa waxaan isla jaxjaxnay ama isla qaadanay inay abaartu tahay mid aad iyo baaxad weyn dhibteedana leh maanta loo baahan wax la qabto aan loo baahnayn mataqaana in hadal iyo kormeero iyo hadii ilaahay ku leeyahay wana sameeyna runtii way naga aqbaleen waxaan rajay doonaa bidmilaa kale sida ugu dhaqsiyaha badan inay ugu muuqdaan abaarta gobolka socota si wax uga qaban lahayn aad iyo mahadsan yihiin mar laadi mastaxaad thanks okay waxa halkaasi ka hadlay sarkaal ka socday hay'adda MBA. Yes, I am from Norwegian People's Aid and we have today met with the regional governor and we are very pleased to be here to get the information on the situation and we hope and we will fight together to get assistance to address this situation. So thank you very much, Governor. Maanta waxaanu kulan wada qaadanay gudoomiyaha gobolka Sool. Waxaanu ka wada hadalnay xaaladda abaarta. Gudoomiyuhu wuxuu na siiyay warbixin buuxda. Aad baanu kaaga mahadcelinaa waqtiga aad na siisay. Sidaas waxa yiri sarkaalkan ka tirsan hay'adda MBA ee ka howlgasha magaalada Laascaanood iyo guud ahaanba gobolka Sool. waxayna gudoomiyaha gobolka Sool iyo saraakiisha hay'adahani ka socotay isla qaateen isi degdeg celal biyood looga hirgeliyay meelaha oomanaha ah iyo in laga gurmado dadka ay abaaruhu saameeyeen lana dardargeliyo howlaha shaqo ee deegaanada gobolka Sool. Maxamuud Aadan Askar Maxamuud Guray Somali News TV Laascaanood.